Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in kabtankeeda Bruno Fernandes ay u adeegsanayso heshiis kala bedelasho ah xagaagan, waxaana ay doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan xiddig ka tirsan kooxda Barcelona. Fernandes oo dhaliyay 10 gool isla markaana caawiye ka ahaa 7 gool oo kale oo horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayaa u muuqday dhawaan mid si maldahan u sheegaya inuu bixi doono xagaagan. wargeyska Isbaanishka ah ee National ayaa qoray in xiddiga reer Portugal ee Bruno Fernandes loo adeegsan doono heshiis kala bedelasho oo aad u weyn. wargeysku waxa uu daabacay in Man United ay u bandhigtay Barcelona inay qaadato Bruno Fernandes beddelkiisana ay la soo wareegto xiddigii muddada dheer diiradda u saarnaa ee Frenkie de Jong. Manchester United ayaa xagaagii 2022 waxay si weyn u doonaysay xiddiga qadka dhexe ee reer Holland ee Frenkie de Jong, laakiin waa ay ku guuldareysteen, taasoo keentay inay beddelkiisa 70 milyan oo ganiga sterling ah ku soo iibsadaan xiddiga reer Brazil ee Casemiro. De Jong weli waxa uu ku sugan yahay Barcelona, balse wararka ayaa sheegaya inuu ku jiro diiwaanka ciyaartoyda uu doonayo milkiilaha cusub ee Manchester United, Sir Jim Ratcliffe. yeelkeeda maadaama Manchester United ay si doonaynin inay bixiso lacagaha lagu qiimeeyo Frenkie de Jong oo gaaraya 77.5 milyan oo ganiga sterling ah, waxay doonayaan in Fernandes uu ka caawiyo qayb badan oo ka mid ah lacagtaas. dalabka Manchester United ayaa ah 17 milyan oo gini oo lagu daray xiddigooda Bruno Fernandes inay ku soo bedelato Frenkie de Jong. waxaa sidoo kale la soo jeediyay in Fernandes uu aqbalayo in Barcelona uu ku biiro, isagoo xitaa diyaar u ah inuu hoos u dhigo mushaharkiisa si uu u matalo naadiga ka dhisan gobolka Catalonia.